horseed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركز أي عشرات امتحانها مادة حساب الدكتور الهرسات. waxay leeyihiin hadii aan hada 10 kami waxa fasalka sideedaad waa maadada xisaabta waxaan ku yeerinaa isleegida jira hore soo sheegnay waxaan dugsiga hoose lagu bartaa labada isleeg waxa weeyaan isleeg taxriiq toosan iyo isleeg tisaabli halka inoo dhig isleeg taxriiq toosan haday hal isleeg tahay waxa la oranayaa waa isleeg kaliya لكن سلك حقيقة توصل هي سلك حقيقة توصل هذه اللي يسقوا الضرر لا يسقوا علينا عبارة لا يسقوا علينا عبارة كذا أو أي لوضع سلك مركتن يتن لابد هذه لوضع فرفرة أو أفه هباب شان الاستعمال مركب لوضع فرفرة أو أي شان حل ديمة أو أي كسبين أو لوضع سلك كلهم كوضع لينكرا أي لوضع يا سلك يودي كذا صوم العلم وحلوحليا إلا وحلوحليا afar hab ay halkan ku yeelayaan habka isugeyntiga kala goynta habka isku bedelka habka graafka iyo habka isgarab dhigga iyo matrix oo isagana meel dambe dugsiga saraad ku arki doontaan way isleegidooda jira hada maxay yihiin halka waxa inoo taala isleeg xariiq toosan oo waa x xaq loo geeyay waxa ku oran tahay sagaal ama x plus y equals to 9 iyo isleeg talabaad oo ah x minus y equals to 3 ama xaq loo laga jaray waxa kuulan tahay saddex taa waxaan oranaynaa waa isleegteena koowaad taa waxaan oranaynaa waa isleegteena labaad haddaba labada isleeg soo qaadno marka koowaad ay dhahaan furfuris hay'adda koowaad ay soo qaadno x plus y equals to 9 waxa koowaad taasinaynta labada isleeg way haysanaa marka koowaad marka habka waxaan doonayaa inaan kaga shaqeeyo waxa la yiri kaga shaqeeyo afartii hab in lagu cayimo haddii aan habka lagu cayimo lagu wada furfuran haddii lagu dhaho habka ku jilicsan isticmaal adigu jeceshahay laakiin haddii lagu cayimo habka lagu cayimo waa in isticmaali kartid ha kugu adkaado ama ku jilicsan soo marka isugeynta iyo kala goynta la yiri habka isugeynta iyo kala goynta ama by elimination method marka la xagga luqadda ingiriisiga laga eegayo haddaba labada isleeg loo imaanayo inay habka isugeynta iyo kala goynta la yiri ku xaliyo hosteen ka jeexay marka koowaad deedo waxay leeyahay qaybta dhexe ee waayada ku qoran yihiin saddex arrimood inay xagga waayada isaga mid yihiin iyo inay maxaa dhahday xagga xuruufta jeeda waa inay isaga mid ahaadaan xagga horgalayaasha iyo iyadana waa inay isaga mid ahaadaan xagga calaamadahana waa inay ku kala duwanaadaan balaayada qaybta dhexe iyo iyadu waa isku mid horgalayaasha iyo iyaduna waa hal iyada waa isku mid halkaa علامته يكذبون صح مرة واحد لها قيد كان بحاجة إنسان صارها ماشي تبع حصل توصل صار إلا حرف ترى حرف حرف وضع علامته كالدوا وطلع صباحا أما ترى هي هم على بحاجة كل شهر بيستوي خلاص أنا أسوق لي سافريا لبيع طول أنت ما كان سوق جاينه ما كان سأل حاجة وصل صار بين على واحد قيمين يا والله ما أكون في سنة حاجة لو يكون في سنة هيمو وريتشي كريم صار الله من عالم يتصل قيمين حاجة ما كنت أبي طول قيمين لا ليه حاجة ولا صارت يا دي ما يحبني يا سام صارت ما ده إسلام بدون أنا من صار قاطع عشان قاطع تصار عن تكوى بس صار قاطع يا حاجة واحد صار قيمة هل كحاجة بدل يعني أنت كمان سيدا سيدا قرانا يا هاي حاجة يلي إحنا ما حاجة يسوقين ما ولا حاجة صالح يا وليشين يا حاجة جين يا مرض يسوقين ولا حاجة يا واحد كورة بتاعي سجال ما حاجة يقول يا لا ليه المرض يسوق وليكتو هذا ما يناسب لكن ليه هذا كمان تيجي واحد قصونا على مرض يسوقين تبغى قصون مرض يسوق وليكتو على واحد كاتشا صالح يا واحد كورة بتاعي سجال ما كاتشا صدق واحد كورة بتاعي سجال ما كاتشا ليه واحد كورة بتاعي صدق horta taasi marka inta soo soo baxaysa labada isleeg mid kamid ah soo qaadanaya mesela uu deebilana jawaabtu sax tahay kale labada isleeg mid kamid ah soo qaadanaya qiimaha xaqna halkeeda marka ku bedelo qiimaha iyadana ku bedelo qiimaha soo helay ee dabadii isu geeyo dhinaca la qaato ya waxa soo helay
يا ده حصل صدق حاجة حقيقية سجال لا ممكن يسوق يسوق حبيب سجال حاجة نوع سجال صوت ترى من الناس اللي قالوا ما هو صح سؤال شيء نتعلم صوت بعض سؤال شيء نتعلم كل حال لوجي شانية واحد ولا متخافة هي حق لوجي صدقية واحد ولا متخيلة أنت صح هبي يسوقينتي كلمة اللي يقول لك شغال هبي يسوقينتي كلمة سعر ولا شغال وصل تكحنين يا مش الجوال خاصة ما كان كحنين وحنلاقي هدايتي لحس كأجل قيب تاني حاجة تاني ساوي إيه halkan xuruuftu waa isku mid laakiin calaamaduhu nuru horgalayaashu way kala duwan yihiin calaamadaheeda waa isku mid marka waa inaan calaamadaha kala duwan horgalayaasha isku mid ka dhigo si aan uga dhigo waxaan leeyahay halkaasaan saa oranaya horgalaha ya-daasaan xaggan ku dhufanaya horgalaha ya-dana xaggaasaan ku dhufanaya waayahay laakiin taasi horgalayaasha isku mid ka dhigaysaa calaamadtirooyinka halkan ku dhufto horgalayaasha isku mid ka dhigaya calaamadaha si aad kala duwan labada qiimaha ku dhuftay waa inaan mid ka jarraaciyo kaasaan tusaalaha raacnaya xisabna waa raacin karta hay haddaba aan intan ku dhufto saddexdaa intaasaan ku wada dhufanaya shantaa ka jarto wadatan intaasaan ku wada dhufanaya saddexdaa iyo xaagaasa isku dhacaya waa saddexa oo loo geeyey saddexdaa iyo shantaa iyo isku dhacaya waa 15 waxay kuula mid tahay saddexdaa iyo 12kaasina way gaaraysaa iyadoo ay ku dhacaysaa saddexdaa iyo waxaan jeedaa afarta waa 12 شنطة كتر تي حدا سلوي استطاعي واحد مغارسة شنطة كتر شنطة كتر تاي سجيتا سايق من استطاعي واحد مغارسة كتر شنطة يصدق لي استطاعي وعشان يتوهي شنطة كتر تي صدق لولا سلوي استطاعي وطبعا كتر وطا أنت ما كان هذا والله اللي يسلك وأقول حقي وأنا halkii dhixba hadalka yaayadu waa isku tirooyinka horgalayaasha way isleeyeen 15 calaamaduna way kala duwan sax markaas isla saaray halkan hadalka labada isku suuqii haday kala go'ayaan kala jir hay waa saddex ka tar wadata waa saddex suuqii wadata iyo shan ka tar wadata way kala go'ayaan maadaama calaamadu kala duwan tawayna calaamadeeda raacay dad halka waxa soo baxaysa laba xaq oo ka tar wadata intan waxa weeyaan loo geeyay inta sida haday isla baxaan siiro waa ka soo haray labadaasna way kala go'ayaan maadaama tarka jalwaato taas la isu geeyo qarsoon tahay halkaana laba ugu soo haray 12 ka jarto laba hay halkan waxa weeyaan laba xaq ka jalwaato siiro waa isku tiriyaa hadii loo geeyo siiro hay xaggan marka dhinaca waxaan qaybinayaa laba ka jalwaata labada xaq horgalaha oo ama xaggan loo qaybinayaa xaggan loo qaybinayaa labadaas isla baxaya halka xaq kaliya tay ku haraysa labada iyo labada soo qaybsanayaan waa hawo soo qaybsanayaan waa halka isugeyntu ku qarsoonay ka jartaa soo qaybsanayaan waa ka jar soo xadeena saasa ku soo saaray haddana si ay iyadoo soo saaro labadeeda islaam mid kamid ah soo qaado labadeeda islaam caadi ah oo originalka ah ama intaan ku dhufan saddexdaa intaas soo qaadanaya waxaan ku bedelayaa halka xada halka ka jarto wadata halka ka jarto wadata xadaas ku bedelay haya shayya waxa ku wada tahay afar inta markaan helo saayada soo saaro halka ka jarto wadata qaadaya xagga gelinaya oo wareejinaya ilaa isaga u geysanay shantuna way ku dhufsanto shanta ku dhufsan yaado iska deysanay ay afarta halkaas dhiganaya afartaas ay wada si taal halkaas markuu soo wareego halka uu imanaya laakiin calaamadiisa ka jartahay waxay isu bedelaysaa isugeyn ay halka shan yaado yahay labadaas markay isu tagaan waa shan shiyada saan soo saaro shanta ku dhufsan ay dhinaca ugu qaybinaya labadaas soo baxayaan iyada waxay qoran tahay marka ay labadaas la isku qaybin oo hal kulamada soo aniga iyada soo saaray xaadina soo saaray hadda doonayso marka aad hubiso la isleegtaadii labada isleeg mid kamid ah soo qaado ku bedel xaad halkii taalo qiimaha ka halka ka jirto wata iyada waxa ku bedesha halka labada dhinac waa inay isu kala leexadaan halkaas marka waxa weeyaan halka isu geynta iyo kala goynta marka isleegidooda jiray lagu furfurayo halkaas aynu maanta ku joojinayna hababka inoo haray halkaas ku soo wadana salaam calaykum horseed schools